tan iyo intii maamulka Puntland ay ku dhawaaqeen inay xiriirka u jareen dowladda federaalka Soomaaliya waxay soo taraya wafuud caalami ah oo ku sii qulqulaysa magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Halkaasina waxaa gaaray madax ay ka mid tahay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo waliba sidoo kaleeto wafuud heer caalami ah oo ka kala imaanaysa wadamada deriska iyo kuwa beesha caalamka. haddaba maxaa ka socda magaalada Garowe iyadoo xalay una ahayd markii golaha wasiirada maamulka Puntland ay ku dhawaaqeen inay xiriirka u jareen dowladda federaalka ee Soomaaliya gebi ahaanna ay kalsoonida kala laabteen dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay soo taraya wafuud heer caalami ah oo ka degayso magaalada Garowe xarunta maamulkaasi Puntland. magaalada Garowe waxaa ka degay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya taasi oo kulan degdeg la yeeltay madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayagoo ka wada hadlay go'aanka maamulka Puntland ay xalay kaga dhawaaqeen magaalada Garowe iyo tallaabada xigtay ee la filayo in maamulka Puntland ay qaadaan. arrintan ayaa daba joogto tallaabadii baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku ansixiyeen qodobada muranka badan dhaliyay ee dastuurka federaalka Soomaaliya. si kastaba eedeymaha maamulka Puntland ay u jeediyeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ahayd in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud gebi ahaanba ay lumisay sharciyadii lagu doortay islamarkaana ay baal mareen nidaamkii u yaalay ummadda Soomaaliyeed. taasi beddelkeedana iyagu haatan ay noqonayaan dowlad ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya inta laga helayo dastuur ummaddu ay u dhan tahay oo afti loo qaaday islamarkaana dib loogu laabanayo dastuurkii ummaddu heshiiska ay ku ahayd ee la ansixiyey 2012. haddaba beesha caalamku maxay ka bedeli kartaa go'aankii Siciid Cabdulaahi Deni iyo xukuumaddiisu xalay kaga dhawaaqeen magaalada Garowe ee xiriirka ay ugu jareen dowladda federaalka Soomaaliya. waxayse soo tarayo rajada iyo weliba sidoo kaleeto kalsoonida laga qabo in beesha caalamku gebi ahaanba ay Siciid Cabdulaahi Deni ka dhaadhiciyaan in uu gebi ahaanba aqbalo afartii qodob ee muranka badan dhalisay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shalayto baarlamaanku ay ansixiyeen. sidan la wada soconay Puntland waxay horey uga digtay tallaabo kasta oo baarlamaanku ay ku ansixiyaan dastuurka cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gebi ahaanba isagu soo abaabushay. waxaana ay dhowr markaasi Siciid Cabdulaahi Deni xukuumaddiisu ay markaasi sheegeen in haddii la ansixiyo dastuurkaasi muranka badan dhaliyay in gebi ahaanba iyagu ay markaasi noqonayaan dowlad ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya ayna u dhaqmayaan sidii markaasi dowlad madax bannaan. waana arrinta maanta keentay in golaha wasiiradu ay go'aankaasi degdega ay qaataan. waana go'aan la wada sugayay waxa markaasi Puntland ay ku dhawaaqi doonto haddii la ansixiyo dastuurkan muranka badan dhaliye. golaha markaasi wada tashiga qaran ee markaasi ay ku midaysan yihiin madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo Puntland ay ka maqan tahay horey waxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu ansixiyeen dastuurkan muranka badan dhaliyay ilaa iyo xilligana iyagu aragtidooda kama aysan dhiiban kadib ansixintii ay baarlamaanku shalayto ansixiyeen. arrimahaasi ayaa markaasi dab ku sii shidaya rajadii uu qabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dad badan ayaana markaasi tilmaamaya haddiiba madaxda markaasi maamul goboleedyada arrintan aysan ka hadlin in gebi ahaanba waxa baarlamaanku shalay ay meel mariyeen uusan ka dhaqangeli karin gudaha dalka Soomaaliya. beesha caalamka ayaa iyagu haatan waxay Siciid Cabdulaahi Deni iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku cadaadinayaan inay dhinacyadu tanaasul sameeyaan sifa gebi ahaanba loo waayin maamulka Puntland. haddii maamulka Puntland la waayana dastuurku ma dhaqangelayo ayay markaasi ku doodayaan beesha caalamka. dhammaan badaneeyaasha caalamka ee Soomaaliya ayaa haatan waxay markaasi ku sii qulqulayaan magaalada Garowe sifa gebi ahaanba Puntland ay ula dhaqmaan sidii dowlad madax bannaan. baarlamaanka maamulka Puntland ayaa ka fadhiisan doona go'aanka xalayto ay ku dhawaaqeen golaha wasiirada ee maamulkaasi waxaana la filayaa in baarlamaanku ay meel mariyaan. haddii arrintani ay dhacdo haddaba maxaa la xiga oo markaasi la filan karaa in markaasi ay ka soo baxdo gebi ahaanba go'aanada la filayo in lagu ansixiyo dastuurka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhinaca kaleeto waxaan ognahay in maamulka Somaliland oo ayagu ka maqnaa dowladda federaalka Soomaaliya in iyaguna ay haatan helayaan nafis siyaasadeed oo ay ku raadinayaan ictiraafkoodii lumay ayagoo markaasi la filaya in beesha caalamku ay u garaabi doonaan islamarkaana ay aqoonsi degdega siin karaan maamulkaasi Somaliland haddii gebi ahaanba wixii ummaddu ku heshiisay uu dhaqan geli waayo. guud ahaan dabadeed waxyaabaha ka soo kordho qaybaha dambe ayaad ku maqal doontaan tan iyo intaan barnaamijkan xigay ku kulmi doonana waxaa idinka tegayaa sidaas iyo ammaan Allah.